kusoo dhawaada wasiirka films magacayga waa Mustafa Cabdullaahi Sheekh oo loo yaqaan wasiirka waa mar kale iyo barashada luqadda Jarmalka dhamaan waan idin karaali gelinaa inta badan yani markasta waxaan jeclahay joogto inaan cashar u soo geliyo laakiin marka qaar waxa laga yaabaa inaan mashquulo oo wax soo gelino muddo ay qaadato mid kalena waxa sababayso ama sababi karto ogtihiin qof haduu business inuu sameeyo haduu rabo oo dukaan ama shay furto meel furto oo dad wax ka iibsada waayo dad badan dadku waxay dhahaan dukaankii wixii waan iska xiray maxaa khasaara aan la kulmay macnaha cid wax iga iibsatay ma laha macnaha hawsh way sii socon weysay hadii midalan ani oo wax duubista saacada iga qaadato oo edit ku soo sameeyo oo wax duubo kadib meelaan subtitle iyo intaan sameeyna wax laga yaabaa wixii saacada badan inaan geliyo hadhow marka meel soo geliyo yani cid badan oo daawata la waayo cid badan oo like saarta la waayo cid badan oo comment ka bixisa la waayo wax isoo subscribe garay la waayo marka baahidi ama hamigi u qabo waxa inaan sameeyo hoos u dhacaysa marka qofkana waxa laga yaabaa qofkina wixii ka cagajido culays dareemo iska dhaaf laga soo waxaan waxba ku daalin isdhaho marka ogteen dadka inta badan maxay like u dalbanayaan maxay subscribe u dalbanayaan maxay comments u dalbanayaan عشان waxay caawinaysaa qofka sheeganahay maadaama aad lacag aadan siineynin oo wixii ku horay ku sameeynaayo in qofka wixii uu ku si adkaado ama wixii yani wixii marka way bush gareynaysaa qofka wixii ku si dhiirana inuu sameeyo marka kulay waxaan jirin tafaacul jirin maanta waxa qiimo leh hadaa soo gelisid oo bulshada waxba ugu fadhinin dadku waxa arkaysaa iyagu saas ku daba socdo maanta comment socdo iyo like socdo iyo subscribe socdo arkaysaa laakiin dadku waxa u maleysaa wax u tala hada u sheegaysa ama faa'iido wala ayaga waa ka sii jeesanayaan qofkii wadayn wuxuu leeyahay waxaan qalaas dadka maadaama rabin maxaa ugu daaleysaa dhibka jiro waxaas waay dad raa waa jiraan la ku yar yihiin ala kulli xal dhowr jira waxa la soo weydiiyay dad codsaday in video ka sameeyo grammarka badana waxyaala la weydiiyay waxa kamid ah nominative iyo der nominative der accusative iyo der dative waxaas niyo ka soo hadal waxaas ay dhaheen horta lama soo koobi karo hal video lagu soo koobi karo marna waxa u qal qaadayna jumlooyinka marka la sameeyay jumlada inay tahay nominative si ku ogaana inay accusative si inay tahay si ku ogaana inay dative tahay si ku ogaana iyo article kan isku bedela article waa taqaaniin der die das marka article ka ujeetiin waa nominative waaye waa bestimmte article bestimmte article waa idin sheeg waa eine iyo ein way markii la joogo accusative is bedelaysa dative markii la joogo is bedelaysa marka article qofka inuu barto uu u baahan yahay isku bedelaysa inuu ogaado kadibna jumlooyinka isku bedelayaan marka bad way hada video bilaw waxa qasab noqonayso hadii mawduucan accusative dative iyo nominative hada idinku fur waxa qaadan waxay noqonaysaa in video uu socdo marka musalsal amal uu noqdo marka insha Allah horta waxaan idin sheegay article aslan dadku waxyaala isku qaldayaan jiro oo iloobayaan article waxa isticmaalaysa markuu meesha magac yaalo verb ficil hadii la isticmaalo shaqo ku milihid sifa hadii la isticmaalo shaqo ku milihid article magac la shaqeeya magac yaala oo kala bax magac marka magacayga aan sheegay Mustafa aan dhahay ama wasiirka aan dhahay ama Aisha aan dhahayo ma loo baahno lama isticmaalo article bas qof magaciisa sheegaysa qofku waa la ogyahay wuxuu yahay يعني هبل الأوسا article waxa la isticmaalaa markii magac yaalo uu yaalo ma fahanti hada maan waxa dheena derman maxaa dheena because inuu niyo waa ognahay laakiin kooya ma dhaqaano marka saas dadka marka article qofku u baahan yahay marka pronoun la isticmaalaa pronoun isku waxa waa magac yaalayaashu waa pronoun English ku hay pronomen waxa dhahayn doojka marka waa isku mid kale waa pronoun marka magac yaalo markaas la isticmaalaa differo ama maqlaysa das kind ama khlaysa magac yaalo marka la isticmaalayo waa markaas ma fahanteen marka waxaan rabaa inaan idin sheego mar walba hadii lagu dhaho waxa jirto saddex shay oo der iyo di iyo das derta waxa loo isticmaal lagu yiri waa labki iyagana waxay dhahayaan masculine ama manlish di ku xigto oo differo ah dida marka waxa loo isticmaalaa feminine muannath dadig waxa doonta dheh marka shay labadood ka soo haraa jiro neutron ina dhaana jeclahay carabi laakiin waxa dhahay af carabiga muhaayid Soomaali ma aqaano wixii marka aan qaadanayn magacyadan oo macnaha qaabka ninka u shaqeynaynin iyo qaabka wixii ka soo haro marka ay das la dhaha marka
der iyo d iyo dastan aan arkaysiin waxa waaye bestimmte article waa idin sheegay markaan dhaho das auto gaari aan isla ognahay ka hadlaynaa shay yani oo xaqiiqa ognahay toosan waay marka wax kale jiro oo garab socdo oo ina ogaato loo baahan la dhaho unbestimmte article maxaa waa eegana markay tahay der tahay unbestimmte article keeda wuxuu noqonayaa ein uu noqonayaa diida waxay noqonaysaa eine das waxay noqonaysaa ein marka waxa isku mid ay dasta iyo der waxay ku wada shaqeynayaan hal xabo ah ein diida laakiin waxay noqonaysaa waxay noqonaysaa eine ay noqonaysaa marka taas oo wax keenaysa in lagu dhaho eine Frau qofku markuu dhaho marka die Frau ama die Frau iyo markuu dhaho eine Frau way kala duwan tahay markan eine Frau adeysid unbestimmte article waxa loo isticmaalaa marka shay qafa laga hadlayo dumar naagta lama sheegay qofkay tahay naag ba waxa sameysay heblaaya waxa sameysay heblaaya lama yaqaan laakiin marka qofkii diidaas u isticmaalayo difaqaw uu dhahayahay macnaha wax buu ula jeedaa qof buu tilmaamay marka taas keenaysa in la dhaho bestimmte article unbestimmte article af Soomaali ahaan had video had aan doowayo muku ka saay bestimmte article magac qeex article magac qeexan iyo magac qeexnimo ma og adoo aan fiirina Google aan ka fiirina waa idin soo qoraa Soomaali ahaan meeshan idinku soo qoraa saas isku bedela markaan hadda aan joogno oo aan dhahayno der iyo d iyo das waa nominative waa inta badan jumladda ka bilaabanayso der iyo d iyo das la isticmaala jumladda markay ka bilaabanayso laakiin markii la joogo accusative markii la joogo meeshan derta way isbedelaysaa waxay noqonaysaa den ay noqonaysaa diida iska ahaanaysaa dasna waxay iska ahaanaysaa ii sheeg das leh ahaanaysaa kali waxa isbedelayso dert waxay noqonaysaa den hadii oo ahaa der computer haduu ahaa waxay noqonaysaa den computer fahmaysaa tusaale ahaan hadda dhis computer soo iibsanaya mesela iibsashada waa kaufen marka ishna waa aniga ish kaufa der computer ma dhisid because anigi iyo ficilkiisu hadii accusative ku marka waxa la isticmaalaa aslanba marka haysatid subject oo nominative ish wa aniga ish do waxas nominative way subject waa aniga iyo ficil haystaa hadii oo meesha object yimaado sheyga soo iibsanay meesha yimaado anigi sheyga iibsashadii ficilka ahaa ama socoshadii ama wixii doonto ha noqoto wax kale oo imaanaya la dhahaa accusative marka hadda computer accusative waa marka accusative joogno meeshii dar ahayd maxay noqotay den marka waxa la dhahaa ishkaufa den computer waxaan soo iibsanay computerka marka waxa laga wadaa tiraahdo dar ahayd maxaa den loo dhahay marka ina ogaata la marka intaan gelin jumlooyinka waa idin soo qoraa asaas ina u fahantanaa rabaa meesha ku aragtay der iyo d iyo das nominative la jooga markii accusative la aado waxay noqonaysaa den kadib waxay noqonaysaa d kadib das kali waxa isbedelayso der dative markii la joogo dative ama dative sadoontu dheh dative markii la joogo ama dative markii la joogo meeshii ahayd den ahayd waxay noqonaysaa dem ay noqonaysaa marka waxa haystaa der iyo d iyo dem haysata okay meeshii d ahayd di Frau ahayd oo d ahayd markii nominative la joogo d ahayd accusative markii la joogo d ahayd markii dative la gaaro ama dative la gaaro maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa ii sheeg der waxa leedahay der ninka iska lahay wuu leeyahay laakiin marar waxa jirto oo la leeyahay ii sheeg der Frau waa jumlada markay dative tahay waa ma fahanteen markay dative tahay waa jumlada ii sheeg jumlada markay dative tahay waa marka meeshii diida ahayd waxay noqonaysaa markii dative la joogo der dasna waxay noqonaysaa dem yaa isku ekaaday marka markii dative ka la joogo derti waxay noqotay dem dastina maxay noqotay dem labadooda dem iyo dem waay article-kooda dem waay laakiin diidii waxay noqotay der ay isku bedeshay laakiin marka accusative la joogo waa den
iyo di iyo das wax isbedel male keli deertii aad den noqotay laakiin markii nominative la joogo caadiga waa deer iyo di iyo das ay ka seeseen saasoo article-ka isku bedela jumlooyinka hadda idin tuso wax walba ay fududaanayaan keli waxa sugtaan jumlooyinka inta ka soo qoray waxaan waa ogaa doontaa insha Allah haddii jumlad meel ay ku qoran tahay lagu dhahay jumladan nominative miya mise waa accusative mise waa dative si ku ogaanaysaa nominative-ka lagu sheegayo waa markaa haysatid tusaale ahaan subject iyo verb wax object ma laha tusaale ahaan maxaan leeyahay ishkeehi yani aniga waa baxaya macnaha meelaan u socdo ma sheegooye waxaasan kusii socdaa ma dhahooye bis waan baxayaa nominative waay macnaha waa ficilkan qofka baxayaa waay ani waay ma fahmaysaan tusaale ahaan du schreibest يعني adiga macnaha waxbaa qoraysaa bis wax ku qoraysaa saa wax u qoraysaa ani wax ma sheegin waa nominative waay waxaa leedahay sie schläft macnaha ayada way hurdaysaa hiya naim waa jiiftaa laakiin sariiray ku jiiftaa mali saasay u jiiftaa mali wax ma sheegay marka nominative waxaas waay waa markaa waa ficilka markuu xiriir la leeyahay subjectiga inta badan nominative-ka ficilo u gooni ah jiro hadii la isticmaalo inta macnaha okay waa inta ku soo qoraa waxa jirto afar ficil mid koowaad waa sein hore oo soo qaadana ogtihiin ich bin du bist sie es ist ich maxay wir sind sie sind sie kalo idan sind ahead iyo site marka ficilka zayn marka la isticmaalayo jumladaas hadii ficil zayn ku jirto inta badan waxa waa ii sheeg nominative waay nominative marka waxa ku fahmaysaa marka hadii xitaa tusaale ahaan aan dhaho ich bin Mustafa ama waxaan ku leeyahay du bist Halima adigu waxa taa Halima du yani adigu waa magac yaalo waay du adigu waay Halimana adigu waay kili waxa soo haray bist oo ahaansha ah marka wax kale ma sheegin ficil iyo bis waxaan haystaa magac iyo maxaan baranawna haystaa magac u yaalo marka dhaho ich bin Mustafa aniga waxaan Mustafa ish iyo Mustafa waa isla qafki waa isla aniga markaan dhaho ii sheeg das ist ein Auto kani waa gaari awtahan gaariga aan sheegay idasta waa isla meeshii kili ficil haysta markii wax macna ma keenay marka ficilka zayn la isticmaalayo marka inta badan zayn wuxuu ku yimaadaa haduu sifo yimaado iyo haduu magac yimaado magac iyo sifada wuxuu ka hadlaa marka tiraahdo maxalla aniga waxaan ahay qof dheer adigi iyo dheerka aad safeena adiga la iska hadlayo iyo ficilkii haysta oo waxaan ahay ah marka ficil bis haystid iyo magac yaalo waa nominative marka afarta ficil ee ku iimaanaysa idin sheega marka midka koowaad waa zayn waa samarida ku sheegay midka labaad waa werden macnaha ich werde yani waxaan noqon doonaa du wirst waxa adoontaa sie wird waxa noqon doontaa kula su'aal waa ka bixin doonaa tusaalooyin waxa ahaan doonaa iyo zayn oo ah waxaan ahay yani ficilka zayn oo ich bin du bist ah iyo ficilka labaad oo ah werden ahaansho waa ahaan doonaa ah midna waa ahay midna waa ahaan doonaa waay kan saddexaad waxa waa ii sheeg bleiben ku sugnaasho ama joognaasho midda afraadna waxa waaye haysan ich heiß du heißt adoo waxa lagu magac marka aan dhaho ich heiße abdi ich aniga iyo abdi waa isla qafkii iyo ficil marka nominative ka soo marka okay marka jumlooyin oo nominative halkan idinku soo qora marka waxa leedahay tusaalaha marka waxaan leenahay ich bin Susi ich ergan ich صح ma ahan sida jamalka muu dhihi karno tusaale waxba idin tusaa u kaadiyo hadda idin tusaa marka dhibka jamalka leeyahay hadda dadka waa ogtiin qaliijiga markii la joogo af carabiga ereyga baxibak ka aw ku jirto ana baxibak aw uhibbuki waan ku jeclahay ka adama karaan qaliijka inta badan waxay isticmaalaan ja baxibak ee dhahan ma fahanteen masaarida oo kala qaafka ma karaan markuu qofka بتقول ايه مركو دا قف maxaa dhaysa ma dhahay xilin بتقول ايه انا بقول لك مثلا
qalas ba'a qaafa ku jiro ma karaan ay dhaha marka dal walba luqad si waliya marka ishtan hada anaga badana isha dhahna iyo waxa ku leeyahay isha dhihin lama dhihi karo waxa say u dhahayna ku tusaa marka ha sa bin Mustafa bin Mustafa laakiin caadi isha la ma dhihi kartid marka af qalin gal wala dhihi karaa ma fahamtay salaam ich liebe dich mana ich liebe dich wa dishtana shaan doona ishtana shaan doona marka laakiin ay soo dhaan lama dhihi karo ma aqaan in qalin afka gal ma sakal ma lagu dhihi karo marka xaleena marka ich bin Susi ich marka had meesha waxa haysanaa kali hal qof iyo hal shay ma fahamtay يعني أنيجا وحنا هاي سوسي أنيجا يا سوسي وهالقف وحنا هاي نوع فعل كوا مرك فعل subject بريك مرك هاي ستة والnominative واي أوكي وحنا هنا das ist ein Auto das ist ein Auto das يو ein Auto وإسلا شيء ما فهم مثلا وإسلا وحي واي أوكي سيدو كل واحد ده كرنا du fährst أنا فردن واي ich ferde du first حننا دو first photograph adiga waxaa noqon doontaa photograph kan iyo adiga isla qof kale waay ich bleibe Lehrerin macnaha waxaan ku sugnaan doonaa ama ahaan doonaa macallimad aan ku sugnaan doonaa aan sii ahaan doonaa xasaas oo kale marka adigii iyo macallimada halka qof leh waay ma fahanteen sidoo kale su'aal waxaad dhigi kartaa Der Mann heißt Abdi ninka waxaa lagu magacaabaa Abdi marka ninka iyo Abdi waa isla qofkii